السلام عليكم كسودو عالين مقعي ومحمد شام علي معدنتو waxa ay kamid tahay waxyaabaha aadka ugu muhiimsan ee ay tahay in aynu barano sababtoo ah waa waxa kaliya ee aynu ku horumarin karno nafteena iyo bulshadeennaba waxaad in badan maqashaa hebel ama heblaayo waxa ay heshay macdan kadibna waa ay ka taajirtay inta lacag badan laga siistay laakiinse waxa jira fikrado kala duwan ama khalad ha ahaadaan ama sax ha ahaadaanba oo ay bulshadeenu ka aaminsan yihiin macdanta iyo faa'iidadeedaba tusaale ahaan oo kale fikradahaasi waxa kamid ah in qofka macdanta hela ama macdan ka shaqeysta in uu noqonayo qof shaydaan la shaqeeyo ama shaydaan ku jiro amaba dhinta amaba waasha caalin online academy waxa uu ku diyaariyay koorso socon doonta muddo 3 bilood ah koorsadan waxaad ku baran doontaa fikir buuxana laga siin doona macdanta faa'iidadeeda iyo habka looga faa'iideysto iyo sidoo kale qiimaha ay leedahay koorsadan waxaynu kala qaadi doonaa macdanta laba nooc baynu kala qaadi doonaa labadaas nooc waxay kala noqon doonaan nooca metaliska loo yaqaano iyo sidoo kale nooca loo yaqaano gemstoneska labadaas nooc waa labada nooc ee aadka loo bombooniyo ama aadka loogu hadalhaynta badan yahay ee markasta qiimahoodu aadka u sareeyo ama faa'iidadoodu ay aadka u sareyso ama isticmaalka la isticmaalaya ay aad u sareyso labadaas nooc ayaynu xooga ku saari doonaa gaar ahaan waxaynu xooga ku sii saari doonaa oo aad inoogu muhiimsan hadaynu nahay dad Soomaali ah ama Afrikaan ah macdanta nooca loo yaqaano metaliska sababtuna waxa ay tahay waa macdanta aynu ugu isticmaalka badan nahay ee aynu dalka dibadiisa ka soo dhoofsano iyadoo oo wadankeena ama dhulkeena aad ugu badan ama ka buuxda iyadoo aynu heli karno waqti kasta iyo xilli kastaba iibina geyn karno amaba munaafacadsan karno macdanahaasi aynu baran doono ee metaliska waxa kamid ah sida cobarta ironta sidoo kale waxaynu baran doonaa silfarta aluminumka dhamaan macdanahaasi aan ku sheegay waxay yaalaan dhulkeena isla waqti xaadirkan waana laga heli karaa tijaabooyin badan oo aanu sameeynayna waxaan ku guuleysanay inaanu helno macdanahani tusaale ahaan oo kale haddana soo qaato cobartu waxa ay taalaa dhulkeena waana ku badan tahay aadna waa looga helaa halka kilogram ee cobartina wuxuu ka taagay dunida qiimo ilaa $8 u dhiganta hal kilogram oo cobar ah maadaama uu ka taagan yahay $8 waxaynu heli karnaa oo aynu waqti xaadirkan ka heli karnaa dhulkeena kumanaantan oo cobar ah iyadoo aynu munaafacadsan karno haday noqoto dhanka wax soo saarka aynu munaafacadsan karno sidoo kale hadii munaafacaadkeena ay ka badato macdantaasi waxaynu iibgeyn karnaa dalka dibadiisa haddii aad in badan ku hamiyi jirtay ama aad ku fakiri jirtay inaad hesho macdan koorsadan aad ay muhiim kugu tahay inaad barato koorsadan haddii aad barato waxaan ku hubaa in aad ku guuleysan doonto inaad hesho dhamaan macdanahaasi metaliska ah iyagoo oo dhulkeena aad uga buuxa goob kasta oo Soomaali degto waa laga helaa macdanahan metaliska laakiin si cid ka faa'iideysata ma jirto oo wali soo saartay ama iibgeysay tusaale ahaan oo kale waxa jira maanta imika haddaad kiilo bira ama birta haraadiga ah ee iskaraabka ah aad soo qaado in ay qiimo taagan tahay laakiin se waxa jirta dhagax bir ah oo saafiya oo aad heli karto isla xilligan aan taaganahay adigoo kiilo u iibin kara macdantan imika cobar baa la ilaahaa sidan ay u egtahay marka caadiga ah ee la dhalaaliyo ama la kala saaro ama la kala shaandheeyo ee la sifeeyo sidan ay u egtahay laakiinse iyadoo sidan saafi u ahna waa la helaa iyadoo sidan cagaarkana waa la helaa dhagaxan cagaarka imika hadaynu shiidno oo aynu badada cagaarka kala dhex baxno oo aynu kadibna badada cagaarka intu soo ururino aynu heerkul 185 degree ku furno kadib uu dhalaalo wuxuu isku rogayaa dhagaxan cobarteed arkayso ee birta ah saad arkayso dhagaxan imika bir maaha kanina waa bir laakiin se maxaa sidan lagaga dhigayaa waa process ba lagaga dhigayaa sidan marka koorsadani waxaynu aad ugu falanqeyn doonaa ama aynu ku baran doonaa dhamaan processyadan oo kale metaliska la mariyo haddaba koorsadan waxaanu kugu bari doonaa qaabka processkan loo mariyo dhagaxaanta loo yaqaano metaliska dhamaan metalisku waxay u ekaan karaan noocan caadiga markay saafiga yihiin nooc ka duwan sida dahabka oo kale sida birta oo kale sida cobarta oo kale sida barasta oo kale dhamaan dhagaxaantaasi waxay u eegyihiin mararka qaar noocyadan oo kale ora loo yaqaan wax ora la ilaahay sameeyaan dhagaxaanta metalisku marka qaabkii aad u fahmi lahayd una kala garan lahayd sida loo kala saaro noocyadoodana aad u fahmi lahayd ayaan koorsadan kugu bari doonaa dhagaxana waxaan uga dhignay tusaale ahaan dhagaxan waxa laga helay dhulka Soomaalida meel kamid ah laga helay waxaana heshay arday kamid ah ardaydii Caalin Academy ka baratay koorsada macdanta bishii koowaad ardaydii baratay ayaa dhagaxan soo heshay dhagaxan wuxuu kamid ahaa dhagax aanu casharada ku bixinay
casharada macdanta bisha koowaad ayaanu ku dhiganay qaabka cover loo helo kadibna ardaygii helay covertani kulli wuxuu ka tixraacay sharaxaadii laga siiyay casharada kadibna wuxuu soo qaaday dhagaxan kadibna anigu ii keenay aniguna kadibna waxaan u xaqiijiyay dhagaxan inuu cover yahay uuna yahay dhagaxantii aynu macdanta ku dhiganay marka dhagaxani tijaabadii koowaad aynu ka qaadnay markiiba waxay ahayd inaan dhalaalino marka iyagoo badanna waanu haynaa waana macdan qiimo adduunyada ka taagan oo halkeeda kilogram waxay adduunyada ka taagan tahay maanta $8 haddaba maxay tahay faa'iidada ay inoo leedahay in aynu la soo baxno ugu yaraan macdanta dhulkeena taala tusaale ahaan oo kale haddii aynu la soo baxno macdantan kobarta loo yaqaano ee wadankeena taala waxa aynu ka maarmaynaa kumanaantan oo aynu sanad walba ka soo dhoofsan jirnay dalka dibadiisa kumanaantan oo kobar ah oo malaayiin dollar nagaga baxda sanad walba oo aynu dalka dibadiisa ka soo dhoofsano ayaynu ka maarmaynaa iyadoo aynu inoo bedelayso iyadoo aynu ku bedelanayno kobarta wadankeena aynu kala soo baxno ee sida tan oo kale ah marka faa'iidooyinkaasi ay inoo leeyihiin macdantu in aynu barano sida loo kala saarayo waliba gaar ahaan nooca metaliska loo yaqaano oo aanu koorsadan xoog ku saari doono marka sida kobartaas oo kale ayaynu uga faa'iideysanaa macdan walba imika tusaale ahaan oo kale macdanta loo yaqaano ironta ama birta loo yaqaano kumanaantan oo iron ayaynu sanad walba ka soo dhoofsanaa dalka dibadiisa waxa inaga baxa malaayiin dollar haddii aynu barano qaabka loola soo baxo macdantan ironta loo yaqaano iyadoo saafiya xataa wadankeena taala ama dhulkeena taala laakiinse ma jirto cid weli ku dhacday ama isku dayday in ay baadho kadibna soo saarto oo process gareyso kadibna bir saafiya ka soo saarto ama iib geysa ama wax ku manfaacadsato wax ku qabsata laakiin koorsadan muddada aynu ku guda jirno waxaynu qaadan doonaa ama aynu baran doonaa qaabkii aynu ula soo bixi lahayn birtaasi dhulka guudkiisa taala ee wadankeena ka buuxda kadibna intaynu soo saarno aynu process gareyno aynu ka dhigno mid qiimo leh kadibna aynu iib geyn karno amaba aynu uga faa'iideysan karno baahiyaheena gaarka ah sida in aynu garaa'id ka sameeyno in aynu iib geyno oo dalalka dibadda u dhoofino imika maanta halka kilogram ee birta ahi waxa uu ka taagan yahay tusaale ahaan oo kale Hargeysa $0.5 $0.25 meelahaas ka taagay ama $0.30 ama $0.30 meelahaas ka taagan yahay waliba gacanta hore dadka ku iibsada meelahaas ay siistaan $0.30 meelaha hadhow hadii si iibinayaan ilaa $0.50 baa laga siistaa laakiin se maxaa ku diiday birteen iyo saafi ayaa taala oo dhulka aynu ka heli karnaa maanta oo aynu kadibna iib geyn karnaa ama aynu wax ka sameyn karnaa kaliya waxa inaga xiga in aynu barano koorsadan muddada aynu dhiganayno waxaynu si toos ah u tagi doonaa oo aan muuqaal uga soo duubi doonaa goobaha macdanta laga helo iyadoo aanu si live idin daawudsiin doono macdanta process-kaanu marinayno qaabkaanu ula soo baxayno ama aanu soo saarayno haday tahay nooca metaliska loo yaqaano haday tahay dahabka sidaan u baadhayno haday tahay kobarta sidaan u soo saarayno inuu raadinayno dhammaan noocyadaas oo dhan qaabkaan u process gareyno qaab maqal iyo muuqaal aanu idinku tusin doonaa fadlan ka faa'iideyso koorsadan adiga ayay ku anfacaysaa waxaana rajeynaynaa ama aanu ku hanweynahay haddii aad barato koorsadan in aad noqon doonto qof macdanta wax badan ka yaqaana noocyadeeda kala duwan marka muddadaasi 2 bilood ah ayaa lagu soo koobayaa macdantan sheeko iyo waraaqa aanu ku akhriyayno oo aanu meel soo taaginaa ma jirto qaab itu soo taabsiya oo live aanu ku baraynaa koorsadan aad iyo aad baad u mahadsantahay